soo dhawaada asxaabta qaar ka mid ah garoomo diyaaradeed oo ku yaala caalamka ayaa waxaa xilliyada qaar lagu arkaa dhacdooyin aan caadi ahayn. Inta badan garoomada diyaaradaha ayaa waxaa ka jira control iyo baaritaan xoogan si aan loogu gudbin waxyaabaha halis ah, balse waxaa jira shakhsiyaad isku dayay inay ka gudbiyaan waxyaabo la yaab leh. Haddaba qaar ka mid ah waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee lagu qabtay garoomo diyaaradeed ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijkan. Aan ku bilowno. Dad lagu qariyay boorsooyin. sanadkii 2015 ayaa waxaa wiilkan yar oo xilligaasi 8 sano jir ahaa gacanta ku dhigay ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalka Spain isagoo lagu soo dhex qariyay boorso weyn. gabar 19 jir ahayd ayaa qaratay in wiilkaasi ay qaab dhuumaleysi ah ku soo gelinaysay xadka ay wadaagaan wadamada Spain iyo Morocco. qoyska wiilkaasi oo jooga qaaradda Yurub ayaa doonayay in Afrika ay ka soo qaadaan oo si qarsoodi ah loo soo geliyay dalka Spain iyadoo lagu qabtay xadka labada dal. sababta wiilkaasi loo tahriibinayay ayaa ahayd in qoyskiisa ay qaabilaad ka heleen waddan ka tirsan qaaradda Yurub, balse wiilka kuma uusan jirin. laakiin wiilkaasi ayaa hadda la siiyay deganaanshaha dalka Spain inkastoo aabihii uu maxkamad wajahayo iyadoo loo haysto inuu dayacay caafimaadka wiilkiisa. ninkan kale ee aad u jeedaan ayaa isku dayay inuu si sharci darro ah ku galo wadamo kale, waxaana garab siiyay saaxiibkii oo ku riday boorso aad u weyn. balse ciidamada booliiska ayaa markii dambe ka qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Lima ee dalka Peru iyadoo isaga iyo saaxiibkiiba ay qaxaysteen ciidamada booliiska. mobiladii gacanta. qaar ka mid ah dadka sida sharci darrada ah badeecooyinka ku geliyay wadamo kale ayaa adeegsaday xirfado la yaab leh oo xilliyada qaar aan horey loo arag. tusaale ahaan, ninkan ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalka Shiinaha isagoo waday ilaa 94 xabbo oo ah mobilada gacanta lagu qaato. balse arrinta cajiibka ah ayaa ahayd in ninkaasi uusan marnaba mobilada ku qaadin boorso oo waxaa dhammaantood uu si la yaab leh ugu duubay jirkiisa isagoo ka hoos mariyay dharkii uu labisnaa. laakiin arrintaasi uma suuragelin oo waxaa hadda gacanta ku dhigay ciidamada booliiska. saraakiisha ilaalada xuduudaha ayaa baaritaan ku sameeyay boorsooyinkaasi balse waxba kuma aysan arag. laakiin markii dambe ayaa waxaa lagu dhex qabtay qaybta iskaanka ee dadka ay dhex maraan kaasoo dhawaaq sameeya marka qofka uu wato waxyaabo ay biro ku jiraan. muuqaalo sawiro ah oo ay baahiyeen ciidamada ilaalada xuduudaha ayaa muujinayay ninkaasi oo jirkiisa ay ku duubnaayeen mobiladaas sharci darrada ah ee uu waday. qiimaha mobilada uu waday ninkaasi ayaa lagu qiyaasay ilaa $50,000 waxa uuna doonayay in uu si qarsoodi ah alaabtaasi ku geliyo gudaha dalka Shiinaha isagoo ka keenay Hong Kong. ninkaasi ayaa doonayay in lacaga badan uu ka helo telefoonada faraha badan ee uu soo gelinayay gudaha dalka Shiinaha. cayaanka caracarada. sanadkii la soo dhaafay ayaa waxaa ciidamada booliiska ee dalka Philippines ay qabteen waxyaabaan caadi ahayn oo ku jira boorso uu lahaa qof rakaaba oo soo galayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Manila. ciidamada ayaa waxa ay boorsadaasi ka soo saareen baakado lagu rido cuntooyinka iyo waxyaabaha kale, balse gudaha baakadaha ayaa waxaa ku dhex jiray boqolaal cayaanka caracarada ah oo nool, taasoo si weyn ugu yaabisay dad badan. dalka Philippines ayaa waxaa ka mamnuuca in si sharci darro ah lagu soo geliyo cayaanada gaar ahaan caracarada. ilaa 757 caracaro nool ah ayaa ku jirtay boorsooyinka, taasoo la doonayay in qaab suuq madow ah lagu geliyo dalka Philippines iyadoo cayaanadaasi ay ku fadhiyeen ilaa $6,000. dhammaan waxyaabahaasi ayaa waxaa la wareegay ciidamada booliiska ee dalka Philippines. dahabkii qarsoodiga ahaa. khubradda dhinaca dhaqaalaha ee caalamka ayaa dahabka ku tilmaama inuu yahay hanti dareere ah oo qofka marka uu rabo uu iibsan karo. haddaba kooxaha badeecooyinka siyaabaha qarsoodiga ah wadamo kala duwan isaga kala gudbiya ayuu dahabku u yahay waxyaabaha ugu fudud ee ay kala geyn karaan meelo kala duwan. mid ka mid ah shaqaalaha nadaafadda ee diyaaradaha ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Calcutta ee dalka Hindiya ka heshay dahab fara badan oo lagu qariyay. haweeneyda heshay dahabkaasi ayaa ka soo saartay gudaha musqusha diyaaradda, waxaana dahabkaasi oo gaarayay 24 xabbo uu qiimihiisu ku kacayay ilaa $1 milyan iyadoo diyaaradda laga helay ay ka timid dalka Thailand. dahabka oo ku jira 2 boorso ayaa waxaa halkii xabbo oo cabirkiisu ahaa ilaa 1 kilogram. laakiin arrinta cajiibka ayaa waxay ahayd in aan la helin qofkii iska lahaa dahabkaasi faraha badan. ninkan oo u dhashay dalka Hindiya ayaa isku dayay inuu si qarsoodi ah dahab aan badnayn ku geliyo dalka isagoo dahabka ku xiray cagta hoose ee lugtiisa, balse ma uusan ka warqabin sida uu noqonayo qaabka socodkiisa. waxaana markii dambe ka shakiyay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska oo gacanta ku dhigay kana soo saaray dahabka oo dhammaa 1 kilogram. masaskii diyaaradda lagu qariyay. xilliyada qaar ayaa waxaa saraakiisha garoomada diyaaradaha ay la kulmaan dhacdooyin la yaab leh iyadoo dad ka mid ah rakaabka diyaaradaha ay waxyaabo cajiiba ku soo ridaan
boorsooyinka ay wataan. haddaba dhacdadan ayaa ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Shanghai ee dalka Shiinaha, waxaana mid ka mid ah kooxaha baarayaasha ah uu ka shakiyay boorso uu watay qof rakaab ah oo xilligaasi maraysay qaybta iskaanka oo lagala socdo shaashada ama dhalada. qofka iska lahaa boorsadaasi ayaa lagu amray inuu furo boorsada, waxaana halkaasi ka buuxay masas badan oo lagu soo xiray baco iyo waxyaabo kale. milkiilaha boorsadan ayaa isku dayay in saraakiisha garoonka uu ka dhaadhiciyo in masaska uu waday dalxiis, waxaana boorsada ku jiray ilaa 121 mas oo isugu jiray noocyo kala duwan. sidoo kaleeto ayaa waxaa ninkaasi uu watay cayaano kale. ninkaasi qaabka sharci darrada masaska kusoo gelinayay dalka Shiinaha ay ciidamada qabteen, iyadoo dhammaan xayawaanadii uu waday dib loogu celiyay dalka Thailand ee uu ka keenay. shabeel kontrabaan ah. muuqaaladan oo ah 2 shabeel oo nool oo aad u yaryar ayaa lagu qabtay garoon diyaaradeed, iyadoo laga soo saaray boorso weyn oo ah nooca cargoga. ninka iskale boorsadaasi ayaa ka yimid dalka Thailand isagoo ku sii jeeday dalka Iran. ciidamada booliiska oo baaritaan dheeraad ku sameeyay boorsooyinka uu ninkaasi ayaa markii dambe ka soo saaray 2 shabeel oo nool, waxaana markii dambe 2 xayawaan la geeyay goob xayawaanada lagu xanaaneeyo. milkiilaha boorsada ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidamada booliiska, iyadoo inta badan ay mamnuuc tahay in xayawaano si qarsoodi ah lagu geliyo wadamo ka tirsan caalamka. xayawaanka jabisada. xilliyada qaar ayaa waxaa garoomada diyaaradeed lagu arkaa xayawaano halis ku ah nolosha dadka. ciidamada booliiska ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Miami ee dalka Mareykanka ayaa qabtay boorso weyn oo lagu soo riday walax la yaab lahaa, waxaana si weyn loogu shakiyay waxyaabaha ku jira boorsadaasi oo loo maleynayay inay ahaayeen waxyaabaha qarxa, iyadoo la wacay ciidamada ku xeel dheer walxaha qarxa. balse markii dambe ayaa waxaa gudaha boorsada laga soo saaray xayawaanka jabisada oo nool, waxaana halkaasi ka dhacday cabsi weyn oo ay qaadeen dadkii ku sugnaa garoonka diyaaradaha. ciidamada booliiska ayaa xiray islamarkaana ganaaxay qofka iska lahaa boorsada laga helay xayawaankaasi jabisada. joodariyaashii aan caadiga ahayn. wadamada qaaradda Yurub ayaa la dhibaataysnaa qulqulka muhaajiriin aad u badnaa ilaa iyo sanadkii 2015. xaaladaha wadamo ka tirsan qaaradda Afrika oo ah kuwa aan deganayn ayaa sababtay in dadkooda ay ka gudbaan badda Mediterranean-ka iyo xuduudaha koonfureed ee qaaradda. balse arrimaha la yaab kale ayaa waxaa ka mid ah qaar ka mid ah dadka muhaajiriinta ah in adeegsadaan xeerado la yaab leh si ay ugu gudbaan xadka dalka Spain. haddaba ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalka Spain ayaa qabtay dad isku dayay in lagu talo joodari kadibna ay ka gudbaan xadka. dadka muhaajiriinta ah ayaa inta badan adeegsada xeerado ay ugu gudbaan qaar ka mid ah xuduudaha wadamada qaaradda Yurub. dad dhintay. mararka qaar ayaa waxaa jira dad isku daya in qaab qarsoodi ah ay garoomo ugu dhoofiyaan meydadka dad ay qaraabo yihiin iyadoo aan la marin nidaamka saxda ah. labadan haweenka ah ayaa waxaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Liverpool ee dalka Ingiriiska iyagoo waday ruux meyd ahaa, laakiin dumarkaasi ayaanan meydka ku ridin boorso sida ay sameeyaan kooxaha sida dhuumaaleysiga ah wax ku dhoofiya. waxaana ay markan adeegsanayeen kuraasta lagu qaado dadka curyaamada ah ee loo yaqaan wheelchair-ka, balse markii dambe ayaa la fahmay, waxaana qabtay ciidamada amniga ee garoonka diyaaradaha. kabihii lacagta lagu qariyay. qaar ka mid ah kabaha ay dumarka ku labistaan ayaa mararka qaar loo adeegsadaa in waxyaabo kala duwan lagu qariyo marka laga soo tago in ay xirtaan. haddaba haweeney dhalinyaro ayaa lagu qabtay garoon diyaaradeed oo ku yaala dalka Belgium, iyadoo xilligaasi ku sii jeeday dalka Colombia. waxaana haweeneydaasi ee kaba ay wadatay oo ah nooca sandalka kuna jira boorso laga soo saaray lacag lagu qariyay. ciidamada booliiska ayaa gacanta ku dhigay iyadoo doonaysa in lacagtaasi ay qaab sharci darro ah ugu dhoofiso dalka Colombia. baaritaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in lacagtaasi ay lahaayeen qaar ka mid ah kooxaha ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya. xayawaankii la yaabka lahaa. garoonka diyaaradaha magaalada Manchester ayaa lagu qabtay gabar 17 sano jir ah oo ka soo duushay Dubai, taasoo madaxeeda uu saarnaa shay la yaab lahaa. saraakiisha garoonka ayaa koofiyadda ay wadatay gabadhaasi ku arkay xayawaanka liyaada jirjirooraha oo dul saarnaa, lamana oga qaabka ay xayawaankaas ula soo raacday diyaaradda. xayawaankaasi jirjirooraha ayaa la rumaysan yahay in qaab suuq madow ah lagu soo iibiyey dalka Sacuudiga, balse arrinta cajiibka ah ayaa ahayd in xayawaankaasi uu ekaa kalarka ama midabka koofiyadda ay wadatay gabadha dhalinyarada ah. qaar ka mid ah dadkii rakaabka ahaa ee diyaaradda saarnaa ayaa arkay xayawaankaasi isagoo ku dul socda madaxa gabadha. inta badan xayawaanka liyaada jirjirooraha ayaa isku ekeysiya midabka meesha uu saaran yahay. ciidamada amniga ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Manchester ayaa markii dambe gacanta ku dhigay gabadhaasi. dadka sida sharci darrada ah u dhoofiya qaar ka mid ah xayawaanada iyo waxyaabaha kale ayaa la kulmaa ganaax lacageed oo adag iyo weliba xabsi sanado badan ah. waad ku mahadsan tahay daawada la socodka barnaamijka Diyeesha Media. haddaad ku cusub tahay channelkeena fadlan subscribe saar si aad u hesho
muuqaaladii ugu dambeeyey mahadsanidin.